الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، تعلمون جميعا أن الدعاء رابط عجيب وصلة وثيقة بين العبد وربه، به تهدأ النفوس ويحصل المقصود ويجاب السؤال وترتاح السريرة، وبه يعرف العبد فضل ربه عليه. ومن أعجب الأدعية الواردة في القرآن الكريم دعاء نبي من أنبياء الله، شيخ مسن متقدم في العمر، عاش ردحا من الزمن لا ينجب ولا يولد له، وبلغ من العمر أقصاه، لانت عظامه وخارت قوته وغز الشيب رأسه، وصارت امرأته عاقرة، ومع ذلك لم ييأس من روح الله وفرجه، بل دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا رشيدا نابها يرثه منه النبوة والعلم. أيها المسلمون عباد الله، in badan ilaahay wuxuu inoogu sheegay kitaabkiisa qiimaha ay ducadu leedahay, inay tahay xidhiidh la yaab loo xoogan oo u dhaxeeya addoonka iyo rabbigii subxaanahu wa tacaala. qofka muuminka ahi ilaahay markuu baryo qalbigiisa ayaa dega, naftiisa ayaa xasisha, maqsuudkiiyo ujeeddada ayaa lagu gaadhaa, oo ilaahay baa addoomaha u ballan qaaday ducada inuu ka aqbalaayo. waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum aman yujiibu lmudara ida dacaah wayakshifu suu. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka dhigay ducada mid ay ku raaxaysato qofka muslimkaa naftiisu. addoonka muslimka ahi ducada ilaahay uu ka aqbalo waxa uu ku aqoonsadaa fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay. ayuha almuslimuuna cibaad allah, adducaau akramu shayin cala allah, kama akhbara bidalika xabiibuna wa nabiyuna muxamed calayhi الsalaatu wasalaam. waxyaabaha ilaahay agtiisa ugu qaalisan ee ugu qiimo badan ayaa ducadu ay ka mid tahay, siduu rasuulkeennu inoo sheegay. ducooyinka u la yaabka badan ee qofka muslimka ee aayadahaasi aqriya cibro uu ku qaadanayo, isla markaana qalbigiisa ay gelinayso rajo weyn oo uu ka qabo in ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu baryo ducadiisa uu aqbalaayo, xaalad kastoo adagoo uu ku jirana ilaahay inuu ka saaraayo. waxaa ka mid a duco ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga sheegay nebi ambiyadiisa ka mid ah. nebigaasi wakhtigaa ilaahay u baryaayo wuxuu ahaa da' kuba dhowaadayba gebagabadii cumriga. wakhti dheer buu noolaa isagoo bilaa ubada, lafihiisii ayaa jilcay, jidhkiisa siday xambaarsanaa, awooddiisiina way isgabtay, cirana waxa ay ku soo duushay, madaxiisoo sida dabka oogiisoo kale ay uga ogsatay. arrinka noocaasi yaa cibaad allah, xaaskiisuna weliba waxay ahayd caaqir, mid madhalays ah oo iyaduna islaan gabowday ah. xaaladda noocaasee uu ku jiraa kumay ridin inuu ka quusto ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala, oo uu isu qaatay inuu yahay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka heli karin waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiisto. bal ilaahay buu baryay subxaanahu wa tacaala isagoo da-ahoo gaboobay, xaaskiisuna islaan gabowday ay tahay. weliba ilaahay qur-aanka uu ku sheegay inay ahayd madhalays. ilaahay buu weydiistay walad oo dhan ilaahay ma weydiisanayo ubad oo dhan. wuxuu weydiistay inaan la sifaad gaar ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegtay.
inankaasi oo sifaadkaasi sababtooda ka dhaxla cilmiga xagga ilaahay uga yimi iyo nebinimada ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey. dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya qaala rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya wainii khiftu almawaaliya min waraa'i wakanat imra'atii caaqira fahab lii min ladunka waliyan yarithunii wayarihu min aali yacquub wajcalhu rabbi radiya. ilaahay subxaana wa tacaala ducada inuu waafajiyey iyo ducadii ilaahay inuu ka ajiibo u ka aqbalay wuxuu ilaahay sheegay inay tahay raxmad ilaahay addoonkiisa u naxariistay. waxaanu rabbi subxaana wa tacaala tilmaamay in raxmadda ilaahay uu helo asbaabta u xoogga weyne keentay inay tahay taxqiiquhu limaqaami alcubuudiya, inuu xaqiijiye addoonnimadii ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray. naadaa rabbah bismihi rab, ilaahay buu subxaana wa tacaala u yeedhay. wuxuu ilaahay ugu yeedhay magiciisa alrab oo magac tusinaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay alkhaaliqu almaalik almudabbiru lilkown, ka makhluuq oo dhan abuuray, awoodna u leh inuu abuuro, ka adduunyada oo dhan leh. allah subxaana wa tacaala adduunyada maamulkeeda haya inuu yahay, magacaasuu ilaahay ku baryey. wadaca allaha nidaa'an khafiya, ilaahay wuxuu baryey duco naftiisuunuu maqashiyey. wa hada min aadaabi adducaa'i alxasana ya cibaad allah, aadaabta ducadee wanaagsan bay taasi ka mid tahay. udcuu rabbakum tadarucan wa khufya, ilaahay baa idhi rabbigiin barya idinkoo ilaahay u khushuucsan, ilaahayna subxaana wa tacaala si hoose oo idinkuna aad ismaqashiinaysaan u baryaaya. wa hada laa shaka ya cibaad allah abcadu min alriyaa wa aqrabu ila alikhlaas. arrinka noocaasi addoonka wuxuu ka fogeynayaa istusnimada, sababu noqonaysa camalka in lagu celiyo laga aqbali waayo, waxaanu u dhoweynayaa qalbigiisana ku xoogeynayaa ikhlaaska. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku baryey nebiga ilaahay xaalkiisuu ilaahay subxaana wa tacaala uga waramay, iyadoo ilaahay uga ogaal badan yahay. rabbi subxaana wa tacaala waa u dan sheegtay, wuxuu ihi rabbi ow lafahaygii way daciifeen, madaxaygiina ciraa qarisay, ducadaada mid ku guul daraystana hore umaan ahayn, waad iga aqbali jirta ilaahayow. waxaan ka baqanayaa ilaahayow dadkan aanu qaraabada nahay, ilma adeerada iyo kuwa la midka ah, waajibkaa diineed inay ka soo bixi waayaan. wa inii khiftu almawaaliya min waraa'i, oo anigu markaan dhinto ilaahayow dacwada iyo diintaadu inay dayacantaan ka baqaya. bal hadda u fiirsada, wuxuu sheegayaa waladka wuxuu u doonaayo. ma wuxuu doonayaa inaan lacag u shaqeeya oo guryo u dhisa oo gaadiid fiican oo qurux badan saara? maya, yuriidu waladan yaquumu bidiin illaah, wuxuu doonayaa walad ilaahay diintiisa kor u qaada, oo cilmiga iyo nubuwada, dacwada iyo risaalada ka dhaxla. ilaahayo waad og tahay oo xaaskaygu waa mid ma dhalaysa, haddana arrinta noocaasi quus igu ridi mayso. ilaahu waxaad ii hibaysaa, wad xaggaaga iiga hibaysaa, asbaabteediba yaana ii muuqan weeyaan macnuhu. waliyan xigtoo halkan walad looga jeedo, kaasoo aniga i dhaxla, reer yacquubna dhaxla. muxuu ka dhaxlayaa maal? abadan, reer yacquub siduu maal uga dhaxli karaa? waqad maatuu wahalakuu min zamaan, iyagoo wakhti aada u fog halaagsamay. isagana maal kama dhaxli karo, oo xaqiiqadu waa sida uu sheegay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam: naxnu macaashira alambiyaa laa nuurath maa taraknaahu sadaqa. haddaanu nahay nebiyadana lama dhaxlo, wixii maal adduunyo aanu ka dhimannaa waa sadaqad ilaahay daraaddii loo bixinaayo.
waxa uu ka dhaxlayaa huwa alcilmu walnubuwatu laa gayr waa cilmigiiyo nebinimada wax kale maaha. wajcalhu rabbi radiya, ilaahay waxaad ka dhigtaa mida adigu raalli ka tahay, isla markaa yeesha sifaad wanaagsan oo addoomaha ilaahayna raalli ay kaga noqdaan. ducaaءun lilwalad bisifaati alxasana waalkhilaali alrafiica qabla wujuudih, waa duco uu sii duceeyey ilmaha ilaahay uu ka rajaynayo oo ugu ducooyey sifaadkiiyo tilmaamaha wanaagsan ee allaha khaaliqi raalli uu kaga noqonayo, addoomaha ilaahayna subxaana wa tacaala raalli ay kaga noqonayaan. u fiirsada addoomaha ilaahayow, kayfa tawasala ila allahi bixaalih, siduu ilaahay ugu tawasulu ilaahay ugu bariyey ee rabbi uu ugu dhowaaday xaaladda adaga uu ku jiro. nin odayoo weyn oo da-ah oo weliba aan ubad yeelan, xaaskiisina ay la mid tahay, ma dhalays inay tahayna loo qaatay midaan waxba dhalahayn, haddana ilaahay subxaana wa tacaala baryaayo walad weydiisanaya. wuxuu sharaxay oo qodob qodob uu sheegay asbaaba ducaa'ih, asbaabta ducadan ku kaliftay oo ay u weyn tahay inuu doonaayo cid ka reebta cilmiga iyo nebinimada ilaahay uu siiyey, inuu doonaayo cid uga hadha dacwada iyo kor u qaadista diinta ilaahay subxaana wa tacaala. wa carada dacfahu cala alqawiy, taagdarradiisii wuxuu u bandhigay allaha qawiga ah. wa faqrahu cala alghaniy, faqrigiisiina wuxuu u sheegtay allaha subxaana wa tacaala haniga ah. ayuha almuslimuuna cibaad allah, nafteenna aynu dib ugu noqonno. qofka inaga mid ah ee maanta xaaladaasoo kale ku jira, ilaahay subxaana wa tacaala walad ma weydiisanaya? hadduu ilaahay ilmo ka baryana isagoon xataa xaas cusub oo yar aan guursan oo islaantaa gabowday ilaahay walad inuu ka siiyo u weydiisto, kayfa yaraahu nnaas, dadku maanta siday u arkayaan? yaraahu nnaasu musaaban, dadku waxay u arkayaan inuu yahay qof ay wax ka sii noqdeen oo khalkhalay. arrinta noocaasi waxa ay ka dhalatay rajada dadku ay ka qabaan farajka ilaahay iyo tala saaradka waajibka ay tahay ilahay inay tala saartaan, iyo kalsoonida ay tahay ilaahay inay ku qabaan subxaanahu wa tacaala. rabbi awooddiisa, qaninimadiisa iyo deeqsinimadiisa ayaa daciiftay oo yaraatay. taas waxay keentay qofka markay xaaladdu ku adkaato inaanu ilaahayba baryin subxaana wa tacaala oo u qaato xaaladdan inay tahay xaaladaan isbedeli karinba. waata keentay dadka qaarkood inay yidhaahdaan siday noo sheegeen bacdulculamaa, nin baa loo yimo waxaa lagu yidhi goor jiilaalah, war ilaahay inoo bari subxaana wa tacaala oo roob doon samee. wuxuu uhi waa balukaadiyo cirku ha yaro daruureeye. wuxuu rajadiisii ku xidhay asbaabta iyo muuqaalada adduunya u muuqda. waxaase meesha uu ka saaray ilaahay subxaana wa tacaala jiilaalka xaaladdu markay u daran tahay, cirkana gobol yaroo daruuri aanu ka muuqan, in rabbi subxaana wa tacaala roobka ugu qiimaha badan ee ugu waxtarka badan uu keeni karo. dad baa xanuunsada oo marka la yidhaahdo ilaahay caafimaad weydiisa ama ilaahay loo baryo, waxay u arkaan ducadaasi inay tahay ducaan meesheedii dhac ahayn. anigu waan sii socdaa ee iska kaydaaya. dadka qaarkood dadka xanuunada halistii ay ku dhacaan way ka quustaanoo waxay u qaataan xaalkoodu inaanu isbeddelahayn. uma duceeyaanoo ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad uma weydiiyaan. xaaladaha fara badan oo adag baa dadka soo mara oo qaarkood sabab ugu noqda ilaahay farajkiisa inay ka quustaan. walaa shaka ya cibaad allah ana hada min dacfi aliimaan wa qilati atawakuli cala allahi subxaana wa tacaala wa naqsi athiqati bihi. arrintaasi waxay ka dhalatay iimaankoo daciifay, tala saaradkii ilaahay ahayd in la tala saarto oo yaraaday, kalsoonidii addoonku ilaahay uu ku qabay oo hoos u dhacday. ayuha almuslimuuna cibaad allah, nabiy llahi zakariya waxa uu ku kulmiyey ducadiisan jumlatan min aadaabi adducaa qarabat alijaaba wa saarat sababan lah. aadaabta ducada koox ka mid ah oo sabab u noqotay
ilaahay ajiibitaankiisu inuu u soo dhowaado. waxaa kow ka ah xusnu danni biاllah wa quwat الrajaa wاtawakuli calى اllahi subxaanaه wa tacaala. ilaahay buu malo fiican ka malaystay. wuxuu ilaahay ka malaystay isagoo xaaladda aad maqasheen ku jira in ilaahay ilmo uu ku arsaaqo, kuna arsaaqi karo rabbi subxaanaه wa tacaala. rajo xoogganna ilaahay waa ka qabay, ilaahayna subxaanaه wa tacaala waa tala saartay. wakadalika alaxa fi اdducaa wa hada mima yadulu calى sidqihi fiih. ducadii buu ku celceliyey, waxaanay taasi calaamad u tahay baryadani inay ahayd mid qalbigiisa ka soo gooday, oo waxaanuu ilaahay weydiisanayo si dhaba u weydiisanayo, oo qalbigiisa oo maqan muu ahayn carabkiisu mid ilaahay baryaaya. qofka xaaladiisu sida ay tahayna ilaahay duca kama aqbalo, siduu yihi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, ina allaha laa yaqbalu ducaaan min qalbin gaafilin lahin. ilaahay duca kama aqbalo qalbi sii jeeda oo wax kale ku mashquulsan, oo ilaahay si dhammaystiran aanu qaabilin. waxaa aadaabtaasi ka mid ah athanaau cala allah biasmaa'ihi alxusna walictiraafu bifadaa'ilihi wa minanih. ilaahay in lagu baryo lagu ammaano magacyadiisa wanaagsan, qofkuna uu qiro oo uu sheego ilaahay subxaanaه wa tacaala nicamka hore uu siiyey. walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya, walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. hada ictiraaf bifadli اllahi calayh, waa qirasho uu qirtay fadliga ilaahay uu siiyey. waxaanay arrintaasi ka mid tahay min aadaabi ducaa, addoonku ilaahay markuu baryaayo inuu sheego oo ilaahay uu ku ammaano ilaahay nicamka hore uu siiyey. ilaahay u taasaad i siisay, oo taasaad igu manaysatay, oo taasaad ilaahu igu nicmaysay. ilaahu maantana taasaan ku weydiisanayaa. waa aadaabta ducada mid ka mid ah, sababna u noqotay ilaahay ducada inuu aqbalo. wakadalika ilaahay subxaanaه wa tacaala xaalkiisu ugu tawasulay. waxaana la isweydiin karaa, muxuu ilaahay u sharciyeeyey ambiyadiisa qaar ka midna ugu ilhaamiyey, ka nabiy llaahi zakariya wa cabdihi wa rasuulihi muusa, in markay ilaahay ay baryayaan xaaladda adaga ay ku jiraan ilaahay subxaanaه wa tacaala inay u sheegtaan. arrinta noocaasi waxay sababaysaa qofka qalbigiisu inuu dabco oo uu khushuuco oo ilaahay subxaanaه wa tacaala si dhaba u baryo. waxaa adaabta ducada ka mida ducadiisa ka dhex muuqata ikhlaasuhu fi اdducaa. cidna muu maqashiin wuxuu ilaahay weydiisanayey, isaga ayuunbaa ismaqashiiyey. fajaءathu اlbishaaraةu min allah wa huwa qaa'imu yadcuu rabbahu fi اlmasjid. bishaaradii baa xagga ilaahay uga timi isagoo ilaahay subxaanaه wa tacaala u taagan oo tukanaya. ilaahay baa wuxu uhi fanaadathu اlmalaa'ika wa huwa qaa'imu yusallii fi اlmixraab ana allaha yubashiruka biyaxya musadiqa bikalimaة min allah wasayida waxasuura wanabiya min asaalixiin. malaa'igtii baa u bushaaraysay, waxay dha ilaahay wuxuu kuugu bushaaraynayaa yaxye, isagoon dhalan buu ilaahay u magac bixiyey. waana magac fiican oo ka turjumaya nolol aan turunturo lahayn, ilaahay waladka inuu ugu nicmayn doono. musadiqan bikalimatin min allah, kaasoo rumaysan ilaahay hadalkiisa. waxaa kaloo la yidhi kaasoo rumaysan nebi ciise. way nebiyullaahi ciisa iyo nebiyullaahi yaxya bnu zakariya waxaan habro wadaag oo labadooda hooyo ayaa walaalo ahaa, kaasoo noqon doona sayid hogaamiye, dadka khayrkii wanaagga ku hogaamiya, kaasoo noqon doona mid dumarka ka dhowrsada, kaasoo noqon doona wahiya acdamu bishaara nabiya min asaalixiin yaxmilu bacdaka arisaala. nebi ka mida kuwa wanaagsan oo dabadaa qaada fariimaha ilaahay dadkana gaadhsiiya oo gudbiya. ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa uu waladkaasi u yeelay sifaadkii wanaagsanaa ee ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka baryey aabbihii oo ah nebiy llaahi zakariya.
ilaahay subxaana wa tacaala fadliya dheeraadna waa ugu daray. yaa yaxyaa khudi lkitaaba biquwa wa aataynaahu lxukma sabiya, isagoo yar buu ilaahay xikmadda siiyey. wa xanaanan min ladunna, ilaahay wuxuu ka dhigay mid naxariis badan. wa zakaatan, xumaan oo dhan ka tahiran. wa kaana taqiya. wa baran biwaalidayhi, labadiisa waalid baari u ah oo u samafala. walam yakun jabbaaran shaqiya, mid kibir iyo isla weyne ay ku jirto oo waddada xun hayana ma ahayn. ayuha almuslimuuna cibaad allah, qof kastoo inaga mid ah oo dhibaataysan oo kurbadi ay haysato, ama xaalad adiga ay soo waajahday oo taa ubad la-aantu ay ka mid tahay, falyadcu llaha bihada adducaa waliyuqawi rajaa, ducada ilaahay ha ku baryo, rajadana ha xoogeeyo. aqulu qawlii hada waastaqfiru llaha liya walakum. alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin. ثuma الصlaaةu والسlaamu عlى rasuuli اllahi muxamadi وعlى آlihi وصaxbih وslma تsliima kaثiira. ama bacdu, ayuha almuslimuuna cibaad allah, sidaasuu farajku ugu yimi nabiy llahi yaxya. xaaladii adkayda uu ka warwarayeyna ilaahay subxaana wa tacaala makhraj iyo meeluu uga baxo uu yeelay. ya zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya. waxaanu zakariya kuugu bushaaraynaynaa inan, hadihi ishaara ilaa annahu sayakbur, waa tilmaamis ilaahay uu tilmaamayo inuu weynaan doono. oo magiciisa la yidhaahdo yaxya, mid isagoo kalaana hore aanaan u yeelin oo aanaanu abuurin. lam najcal lahu min qablu samiya, ay mathiila, mid la mida oo isagoo kalaana hore umaanaan jirsin. waa bishaarooyin waaweyn. islaantii gabowday ee uu yidhi waa madhalays, way dhali doontaa, inan baanay dhali doontaa, waanu weynaan doonaa, magiciisuna waa yaxye, wuxuu noqon doonaa mid saaxibu xikma ah, waalidkii u samafala, ka zaahida wax kastoo ilaahay uu u diiday, dadka u naxariis badan, xumaan oo dhan ka tahiran, noqda nebi ambiyada ilaahay ka mid ah. ayuha almuslimuuna cibaad allah, sidaasi ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalay ducada la yaabka leh. waxaa daba isweydiin leh, talow nebiy llaahi zakariya cumri dheer buu joogay markuu ducadan ku ducaystay, talow maxaa sabab ugu noqday isagoo cumri gebagabadii jooga inuu ilaahay subxaana wa tacaala ducadan uu ku baryo. ilaahay baa inoogu sheegay fi lqur'aan fii suurati ali cimraan, kulamaa dakhala calayha zakariya almixraab wajada cindaha risqa. wuxuu ilaahay ka warramayaa qisadii maryam ummu nabiy llaahi ciisa. waxaa kafaalo qaatay nabiy llaahi zakariya oo habaryarteed ay u dhaxday. mar kastoo halka ay ku cibaadaysato ugu soo galo, waxa uu agteeda ku arkaa risqi iyo raashin xagga ilaahay ka yimi oo dhulka aan oolinba. qaala yaa maryamu annaa laki haada, markaasuu weydiiyaa u yidhahdaa, maryamaay, raashinkan iyo arsaaqdani xaggay kaaga timi? dhulkan aynu degannahay lagumaba hayee. qaalat huwa min cindi illaah, waxay tidhi ilaahay xaggiisa ayay ka timi. ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab, ilaahay cidduu doonuu arsaaqaa xisaab la-aan. ta'ammaluu fi hadihi alkalima, ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. albaabada risqiga ilaahay waa kuu furan yihiin, ha aaminin inay kaa xidhmeen, inkastoo xaaladaadu ay adag tahay. asbaabtii arrinka aad doonaysa aad ku gaadhi lahaydna aanay aad kuugu muuqan. ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab, kelmaddaasi ayaa qalbigiisa taabatay oo raad weyn kaga tagtay oo ku dhalisay xaaladan adaga uu ku jira ubad la-aanta ah, iyo inaanay u muuqan cid khayrkaa ka dhaxlaysaa, inuu ka ducaysto ilaahay uu ka baryo in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka saaro oo walad khayr qaba ilaahay uu ku arsaaqo, isla markaana uu xoogeeyo rajada
وكقب إلهي دعاء إنه كأقبله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إلهي عدو دون أرزاقه ولما ماها مدعيرية بغير حساب هذه علمك دون سينات بلوضه وكقو أدقيا هاي قل لنفسك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أرزاق ذا إلهنا علمك يا كميدة وكذلك إيمانك يتوصنان تادو هدي هوصيصو وهتعيشها إناد كورقادو وهاد حوتيسو هقوصن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هداد عافماد لا ذهي هقوصن إلهي بري إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وحو إلهي كوارزاقات دوميس حساب لان وحاكمدا عافمادك وبدلاني هديكو هايسو هقوصن إن إلهي أبد ويديسو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تأثر نبي الله زكريا بهذه الكلمات العظيمة وحراد يقلبي ستابتي كلمتها وين قيمها له هنالك أي في ذاك الوقت إسلام مركا دعا زكريا ربه دب وموسي دقن رجدي سيبا حوق نقطي مركب إلهي ببري قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إلهي وحديه بيساه وذكت دقيقه بيساه أي وإن لم تكن أسباب ذلك ظاهرة وحاصلة أرنت أسباب تيدياني موقنبة ومدي هرتا لباني نقن كلمة من لدنك تفيد هذا المعنى كلمة داسي معناها سيفايدين إساه ذرية تفير يا أبد أردن إلهي بويديسا ذرية طيبة تطفر بدن با إلهي وحويديسته قاربا إلهي سبحانه وتعالى ويديسته أبد قاربا إلهي ويديسته مال قاربا إلهي سبحانه وتعالى ويديسته عافمات قاربا إلهي ويديسته إنه مدحلك بدله لكن تفوتهم هذه الكلمة طيبة صالحة نافعة وناكسا واحتر له هقاكسا وتوصل وانا كلمة هذه هذا قيمة بدن والدعاء هدي اي كهردو والشيء قال إلهي هذا ويدي ستوارن كاسي وكم قيهي وحباني كوسو كردهين بلاد نقوني سميد خساري قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إله وحديه بيسا أبد وناكسا يا عبد الله هداد إلهي أبد ويديسان سكوه وناكسا ويديسو هداد إلهي مال ويديسان مال صالحة ويديسو هداد إلهي النرالي عافماد ويديسان يسو وحد ويديستا مد إلهي كودا ويسا سبحانه وتعالى وربي أنكافقين هداد إلهي ويديسان يسو مضحنين كابدلو واحد قدرتا إلهي كوا خير قبو وناكسا نوق بدل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.